arrintani waa mid naadir ah oo ku cusub magaalada Gabiley mid kamid ah dirawlada bajaajka ayaa arooskiisa waxa lagu galbiyay tiro badan oo gaadiidka bajaajka ah bulshada magaalada Gabiley waxay ahayd maanta maalin ay arkeen waxa ku cusub geeyiga iyagoo dhankooda raacinayay mashxarad iyo damaashaad ay ku qaabileen farxadda bajaajka lagu galbinayo daawada ma jeceshahay in arooskaaga lagu galbiyo bajaaj wadooyinka magaaladu waxay ahaayeen kuwa mashquul ah oo ay ku kaliyeysteen bajaajku iyagoo maraya jidadka waaweyn si dirawlada bajaajku ay isku fahansiyaan inay si wada jira uga qayb qaadanayaan mid kamid ah dirawlada bajaajka oo aroosa bajaajku waa kuwa ugu muhiimsan ee bulshadu imika adeegsato balse maanta waxay dhamaantood u dareereen in ay galbiyaan dirawalkan caruuska ah iyagoo ka turjumaya in arrintan ugubka ah bulshada u horseedi karto in ay haddi kadib aroosyadu isticmaali karaan bajaajka Ismaaciil Maxamed Jaamac waa abtiga wiilka arooska ah wuxuuna uga soo jarmaaday degmada Farweyne si wiilka abtiga uu yahay ula wadaago farxadda arooskiisa marka hore Ilaahay ayaa mahad iska leh marka labaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ninkan oo magaciisa la yiraahdo Axmed Abdi Maxamed Aadan oo ay dhashay walaashay waxaan leeyahay hambalyo afti waxaan ugu hambalyeynaya ducada rasuulka barakallahu laka wa jamaa alayka inta kadib iyo dadaaran doonaya halkan inaan ka ilaahdo wiilkan aftiga wahay kulli aftigu waxa la waa hooyo bilaa naasa kulli afti waan kaaga hadda leeyahay leeyahay kalgacal badanahay kuwa aan dhalay iyo kuwa la dhashayba waxaan leeyahay afti Allah idin barakeeyo reerkii lagu nastay lagu nagaado oo khayr qaba kala hela lagu nasta Allah idiga yeelo waxaan ka kula dardaarmayaa markii hore inay yar waxaad ahayd hadda la beekan caruurtiya maanta waxaad tahay laakiin mas'uul fuulay oo xaas iyo ubad hadda la beedankeeda la xilkooda qaaday waxaan leeyahay xilkaasi Allah ha kugu asturo hadda la beedankeeda leeyahay baahadii moogtay hadda la beedankeeda leeyahay madax ana Allah ka yeelo ساسان كودا تاري أفتي بارك الله وحكرا دوري رالي هيجا هذاني حكرا كسر مهما دوري كسرامو ويومها بريادة أنا رأيه وصفي عن نجارة قريب كلي حفلة إن كان أنا أفتي واحد ويب سايت كلي هذا كيبلي بتلت وحنا هيدكونا سيدا كلي همبليو وتكون هتنتهين وارتقاءك أن يقبشين أن نوقت ماده هويندا وهابرت ويل كاروسكا waxay tilmaamtay inay maanta farxad balaaran u tahay iyadoo bulshada ugu baaqday in aroosyada had kadib loo isticmaalo gaadiidka bajaajka alxamdulillah ilaahay way ku sameeyay farxadii inaan kayga inaan kor habaryar wahay magacayga waxa la dhahay Maxamed Jaamac inaan kala habaryar baan wahay ma sha Allah inaan ku galbinay gaadiidka bajaajka insha Allah ilaahay idinkiisa waxa sugnaa arooska sida yasiin la mid ah kadib arooyinamada bajaajada wadanaha laga waraya hawlaha ka warhaya qaar kamid ah dirawlada bajaajka ee galbinaya arooska ayaa arintani ku micneeyay tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan aniga magacaygu ah Yuusuf Maxamed Yuusuf kana mid ah mulkiilayaasha bajaajka amba dirawleynta bajaajka maanta waxaan sameynay dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore dhici jiray gobolka waxaanu sameynay caruuskii ugu horeeyay ku qaadnay bajaaj aan ku galbinay bajaajyadii joogay Gabiley oo dhan waxaan leenahay dadka kale caruusyada waxaan ogaanay in bajaajta iyadna waa gaadiid cusub oo soo biiray gobolka imika waxaan ku qaadnay caruuskii oo saarnay waxaan ku geynay meeshii u baahnaa in isdaba gelinay gabigoogii waxaan leenahay kulli marka aroos la galbinayo ee gawaarida loo yeedhanayo kulli way kala lacag badan yihiin baalaha marka la eego baalahani marka dhinac loo eego ka jibay yihiin gaadiidka wayna ka qurux badan yihiin waana ka badan yihiin marka badil eego waxay toon baabuur qaadan lahaayeen bay iyadu ka timir qaadanaysaa
maanta waxa aad u mahadlay walaalkeen caruuska oo saaxiibadii aad iyo aad uga qayb qaateen oo soo dhaweeyeen oo si fiican looga tumay magaalada bulshooyinka reer Gabiley waxaan sheegay bajaaj uu yahay gaari maanta ay ina tuseen gaari loo kireysan kara aroosada ama u tumi kara uu yahay maanta xitaa uu ka shiib macaayahay ama uu ka qurux badan yahay gaariyaasha kale wada arkaysan bulshadu sida qaabka ay isku daba raaceen sida kamarlaashu lagu dubay wada arkaysi marka waxaan hadda aroosada ka dalbanaa bulshada Gabiley in wixii la kireysanay bajaajada ay yihiin gaari la kireysan karo oo maanta tusaale u ahayd arooskii walaalkeen ee si fiican loogu soo dhaweeyay ee bulshada maanta aad iyo aad loo hadalhayay hadalhaynta aad u badatay marka bulshada waxaan sheegayaa in bajaajlida aad wixii aroos samaysanaya ama doonista laga qayb geliyo waayo waa gaari maanta waxay cadeeyeen inuu gaari yahay gaariyaasha kamid ah maga aad baan ugu hambaleynayaa saaxiibadooda aad uga gijiyay ee aad ula shaqeeyay aad baan salaamaya maga waxaan leeyahay aad baan mahadsantihiin nin walba caruusina waxaan leeyahay saa ula shaqeeya bajaajadana waxaan leeyahay si gaar ah loo eego oo in gaariyiin hal la eego oo wada arkayeen jiilka iyo quruxda isku dabagalay oo la arkayay marka waxaan aad u salaamayaa caruuska mar labaad kana saaxiibadiisa qaaliga ah Axmed Cabdi Maxamed waa wiilka arooska wuxuu saaxiibadii uga mahadnaqay sida ay bajaajka ugu soo galbiyeen iyo qaabka ay u ag taagan yihiin waxaan hambaleynayaa saaxiibayaasheeda qaaliga si fiican soo dhaweeyay teenu ilaahayna kuulkeeda khayr qabilaha ka dhigo waxaan hambaleynayaa saaxiibayaasheeda waxaan leeyahay teenu ku ilaahay saasoo kala niga dhigo daawade ma qabtaa fikirka ah in arooskaaga amba arooska wiilkaaga lagu galbiyo gaadiidka loo yaqaan bajaajka waa markii ugu horeysay ee aroos ka dhaca magaalada Gabiley lagu galbinayo gaadiidka bajaajka arintan waxa si weyn u soo dhaweeyay bulshada magaalada Gabiley waana aroos saacadii ugu dambeeyay si weyn looga hadlayay magaalada Gabiley oo bulshadu ay aad u soo dhaweysay waa Jaafar Caawil Hareeri shabakada wararka ee gabiley.net magaalada Gabiley